هوينكن ودور وحليه الدعاده waa arrin jirta muxuu ahaay gudniinka gaar ahaan tacdiyada haweenku way badan yihiin gaar ahaan gudniinka weli macnaha Soomaaliya waa ku xoogan yahay runtii muxuu ahaay sida aad sheegtay muddo laga joogo 2 sano iyo 3 sano waxa u geeriyooday dhowr gabdhood oo gaar ahaan gobolka muxuu ahaay Galmudug oo u dhinteen oo arrimahaas macnaha muxuu ahaa lagu sameeyay haddana dhacdadii ugu dambeeyay waxay ahayd tii ka dhacday meel baadiye ah oo gobolka oo isla Galmuduga gaar ahaan dhinaca Mudug ayay arrimahaas ay ka dhaceen dad macnaha baadiye ah gabar yar oo 13 jir ah oo la guday ka bacdina macnaha arrintaas ay u dhimatay dhiig bax darteed marka runtii arrintan waa arrin nagu soo noqnoqotay oo muxuu ahaayay oo dhibaatooyin badan ay gabdhaha Soomaaliyeed ay kala kulmaan marar badan waa ka hadalna runtii dad badan way ka hadleen wadaado badan hataa way ka hadleen laakiin weli waxa ka xoog badan arrintii macnaha dhaqankii iyo caadadii ayaa macnaha dadkii ka xoog badaday waxaana inkastoo ay diin ayna ahayn waxa kale aan weli macnaha aniga aan rabaa inaan macnaha arrintan aan ku xoojiyo waxa yar dhinacii wacyigelinta dadkaas waa dad heermi ah waa dad heer guura ah wacyigelin ma helaan macnaha muxuu isbitaal ma jiro waxba ma jiro marka macnaha information macnaha muxuu ahaaye ama macluumaad badan ma ay helayaan aduu baadiyihiiba ka hadlaysa Maxamed magaalada caasimadda oo Muqdisho ayaa lagu sameeyaa muxuu ahaaye gudniinka gabdhaha weli si xoog leh ayuu Soomaaliya oo socda inkastoo wacyigelin badan la sameeyay ee dad badan juhdi badan ay geliyeen haddana arrintii sidii la rabay muxuu ahaaye ma aha weli way sii socotaa haddaad aragtid graafiga adduunka oo dhan annaga ayaa ugu sareyna marka arrintan waxaan aan rajaynayaa in muxuu ahaaye marka hore sharci laga soo saaro waa la isku dayay macnaha dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka baarlamaanka way geeyeen laakiin weli lama ansixinin muxuu ahaaye waxba lagama qabanin muxuu ahaaye arrimaha tacdiyada haweenka oo dhan wixii sharciga u baahan yihiin markii sharci la keenayna sharci kaligiis ma shaqeeyo in wacyigelintii lagu biiriyo marka waxaan rajaynayaa dawladda cusub oo dhalan doonta iyo baarlamaanka cusub oo imaan doona in arrimahan fiiro gaar ah loo yeesho oo tacdiyada haweenka runtii wax laga qabto ayaan rajaynayaa wallahi annaga muxuu ahaa ifsan ahaan ilaa iyo hadda waxaan macnaha muxuu ahaa aan ku mashquulsanahay waa gudaha wadankan waa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa degan macnaha ifsan ahaan barnaamijka aan wadno Soomaali kaliya kuma koobna macnaha dadka oo arrimahan wada macnaha muxuu ahaa ay caadada u tahay oo Afrikaanka u badan ayaa macnaha muxuu ahaa ayaan ku ordinate gareynaa laakiin sidaan mar horeba aan sheegay haddana aan ku celinayo annaga waan jecelnahay inaan wadankii Soomaaliya wax ka qabanno haddii hay'ado macnaha muxuu ahaa arrimahaas ay diyaar yihiin oo inaan la shaqeyna waay aragnimadan halka aan ka qabanay iyo waxyaalahan halkaan ka sameynay waan jecelnahay muxuu ahaa inaan wadankeeni aan geeyno oo aan ku biirino haddii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka waan akhriyay aniga qaramada midoobay muxuu ahaayay waxay soo saareen warbixin weygii hore oo ku saabsan guud ahaan tacdiyada gabdhaha loo geysto oo waliba tiro badan ay macnaha ay sheegeen boqolkiiba 80 inay macnaha arrimahan gabdho badan oo Soomaaliyeed ay ku dhaceen ama dhinacii kufsiga ha u badnaada dhinacii gudniinka adiga tacdiyada guud ahaan oo haweenka ay ku dhaceen waa sidaan kuu sheegay waxa hadayna ayna sharci jirin Maxamed ay wacyigelin ayna jirin kii macnaha dhibaatadaas geystay ama wixii dhibaatadaas geystay ama ficilkaas sameeyana wuxuu mudnaa la siin waayo hadda wixii way sii soconayaan waxay noqonayaan viscu circle iska soo daba noqonaya hadaan waxba macnaha muxuu ahaayay aan laga qabanin sida daraadeed waa run waxaan way jiraan waxay u baahan yihiin wacyigelin laakiin runtii weli mudnaanteedii lama siin arrintaas waxaan xasuusanahay markii dawladdan oo hadda hogaamiyo ra'iisul wasaare Roble oo la dhisayay markii tacdiyadii ay faraha ka bateen wuxuu hataa soo jeediyay si aan wax uga qabto tacdiyada lagula kaco haweenka iyo carruurta Soomaaliyeed iyadana mudnaanta koowaad ayaan siinayaa taasoo muddo badan lagu soo noqnoqotay waxaan magacaabi doonaa insha Allah qabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu uga shaqeeyo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka
marka kolleyba waa arrimo kale oo ka waaweyn ayaa muxuu ahaayey ay yimid oo wax macnaha mudnaanta lama siinin laakiin waxaan rajaynayaa in macnaha dowladda Soomaaliyeed maadaama hadda lagu mashquulsan yahay muxuu ahaay doorashooyinkii in macnaha inta hataa doorashooyinka ka dhiman in dowladdii ay sii wado waxay wax ka qaban karaan iyo dowladda cusub oo soo socota insha Allah iyo baarlamaanka cusub oo soo socda in ay arrimahan tacdiyada haweenka ay wax ka qabtaan wixii annaga waaye aragnimo ah oo nalooga baahan yahayna diyaar ayaan u nahay inaan macnaha la shaqeyno haddii Ilaahay yiraahdo dowladda Puntland runtii waa u hambalyeynaya muxuu madaxweynaheeda iyo muxuu wasiirada waxay soo saareen muxuu ahaayay waxay isku raaceen in arrintan meel la saaro oo sharci laga keeno waa bilaaw fiican runtii oo ku dayashayana mudan waa waxyaalaha loo baahan yahay oo wacyigelin inkastoo dad badan ay ka falceliyeen ay dhaheen arrintan macnaha waa arrin diina taasna waa wax la iskaga imaan doono oo laga wada hadli doono arrintan dad badan oo anaga muslim nala aha tusaale kale wadankan nala degan oo nala yaabanba arrintan markii diin macnaha gaar ahaan islaamka macnaha xiriir loola yeelo oo macnaha muxuu ama Morocco ha ahaato ama Turkiga ha ahaato ama Liibiya ha ahaato ama Algeria ha dad badan oo muslimiin oo runtii diintii si fiican u yaqaan marka hadaan soo noqdo Puntland waa sharci wanaagsan macnaha muxuu ahaay oo bilaaw ah waxaana rajaynayaa inay baarlamaanka sidii wasiiradaba ay u ansixiyaan inay u ansixiyaan ay tusaalana u noqdaan hadhoydii muxuu ahaay maamul gobolada kale ee jira ee wadanka taas ayaan waxaan leeyahay horta hambalyo waa bilaaw fiican marka waxaan rajaynayaa in wax qabadkiisina degdeg loo qabto maadaama hadda wadankeeni oo u jeestay ama oo u jeheystay muxuu ahaay doorashooyin laga soo bilaabo aqalka sare oo gaar ahaan baryahan aad macnaa loogu mashquulsan yahay iyo golaha shacbiga oo ku xigi doono horta waa muxuu ahaa qoondada gabdhaha Soomaaliyeed waa muhiim in siday tahay macnaa muxuu ahaay hadda loo hormariyo macnaa loo gaaro oo ah 30% ilaa ay hadda waxaan haysanaa 24% waxaan rajaynayaa doorashooyinkan cusub inay gaaraan 30% ama intii macnaa ay ka badan tahay laakiin midda aniga aan rabo inaan macnaa muxuu ahaay aan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed inaan u sheego aan rabo waxa aan rabno waxa waaye annaga haween runtii oo muxuu ahaay la jaan qaadi kara waqtigan hadda lagu jiro 2021 ayaan macnaa aan ku jirnaa iyo macnaa muxuu ahaay la jaan qaadi kara waxaan ka wadaa dhinacii macnaa xirfadda dhinacii aqoonta dhinacii wax adoorasida dhinacii macnaa muxuu ahaay dhinacii aqoonta meel kasta ka dhisan ama dhinacii siyaasadda ha noqoto ama dhinacii arrimaha bulshada ha noqoto ama dhinacii muxuu ahaayay go'aan gaaridda iyo waxyaalo lamida inay noqoto qof kasta oo haweena ma noqon karo muxuu ah parliamentarian macnaha parliamentarian dadka aan ka rabno hadda waan soo aragnay 24 ayaan boqolkiiba aan leenahay maaha markii waxyaalaha macnaha muxuu ahaay aan la yaabo waxyaalihii gaar ahaan haweenka quseeyo oo baarlamaanka la geeyay intii la rabay inay gabdhaha macnaha ay taageeraan macnaha garabkii laga rabay macnaha lama helin annaga waxaan rabnaa waxa waaye arrimaha kaliya haweenka maahan arrimo kasta oo bulsho ah oo baarlamaankaas la keeno in macnaha ama kan sare ha ahaada ama kan kale ha ahaada inay ka qayb qaataan dadkaasna ay aqoontooda lahaadaan macnaha ayna dhihin haweenaad tahay markay meesha lagu keeno inaad isdhihin haweenaad tahay waxaan ma dhihi kartid in macnaha komishinada la sameyn doono meel kasta ay ka qayb qaataan sida wadamadan aan joogno ay hormood ka noqdaan ma rabna annaga in safka hore lasoo fariisto kaliya la isaacabiyo laakiin waxaan rabnaa baarlamaanka 11aad haddii Ilaahay yiraahdo gabdhaha soo galayo aan ku boorinayna aan ka codsanayna gabdho muxuu ahaa haweenka Soomaaliyeed dhibaatooyinka haya ka hadla wax ka qabta hormood u noqda tayada haweenku waa muhiim waxa aan macnaha tirada haweenku waan u baahanaa inay haween badan ay ka mid noqdaan parliamentarian macnaha muxuu ahaa haweenkaas qaarkood hataa inay wasiiro noqdaan inay macnaha dawladda guud ahaan macnaha aniga 30kaas parliamentarian kale markasta hadda ka horna waa haddana waa ku celinaya meel kasta oo institution ama muxuu hay'adaha jira inay gabdhaha Soomaaliyeed iyo haweenka dhan ay ka noqdaan 30% waa bilaaw laakiin anaga goolkayna 50% waaye marka muxuu ahaayay inay meel kastaba ka muuqdaan ay ku jiraan wax qabadkoodana oo muuqdo hay'adaha dadka ku jiraan inay haweenka iyaga naftirkooda ay siiyaan muxuu ahaayay waxa ay mudan yihiin haday wiil iyo gabar meel isla soo qortaan badana wiilka ayaa la qaataa laakiin kriteeriyaha gabadha lagu qaadanayo waa inay fiiriyaan gabadha aqoonteeda la leedahay
waxbarashadii la soo qaadatay gabdho injineer ahaa jira gabdho dhakhaatiir ahaa jira gabdhaha meel kasta way ka muuqdaan hadda laakiin shaqadii sidii loo baahnaay uma muuqato go-aan meeshii laga gaarayo waad aragtay shirarka dhan oo la isu yimaado oo wadanka lagu heshiinayo miiska hadaa aad fiiridid waxa hareereysan waa rag 3 xaba 4 xaba haween ayaa gadaal ka fadhida ayagana loogu talagalaba inayna wax inbuda ayna ku lahaanin macnaa ujeedada aan ka leeyahay waxa waaye annaga ma aanihin annaga waxaan nahay hooyooyin waxaan nahay walaalo waxaan nahay muxuu ahaayey qof ayaga oo kala ahoo wax la soo bartoo la siman sidaa daraadeed waxaan aaminsanahay aniga waxaa adiga qaban kartid inaan anigana qaban karo marka waxa waa ilka wada jir ayay wax ku qabtaan anaga wax gooni aan boobayna ma lahe waa in macnaa shaqadayni muxuu ahay naloo fasaxo naloona ogolaado macnaa sidaan uga qayb qaadano horumarka wadankayna tiigsanayo